الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تدمان ملك استوى جوكتان وإذن سلامي مالمهان مسوقلين لايفكا أما بدنين فيسبوكا مشغولي هذه أسبابي جرى درتيد waxaa hadda xoogaa i soo kiciyey arrinta ka dhacday beled xaawo ama buulo xaawo qofas u yaqaan. beled xaawo waa meel aan aqaano, waa dhulka Soomaaliyeed oo aan jeclahay dhammaantiisba, oo aan maray, oo aan seexday, oo wax ka cunay, oo wax ka qabtay, oo wax ka dhisay. waxaan xusuustaa habeen aan maray luuq iyo buulo xaawo inta u dhaxaysa gaarigu intuu dhiiqa naga galay aan habeenkii beled xaawo meel dhex u dhow sidaan u lugeynaynay roobna nagu daayay oo annagoo ka nimi furitaanka macahadkii ducaadda rag badan oo ka baxay ama ka qalin jabiyey. waxaa laga yaabaa adduunka daafihiisa inay joogaan oo ka dhegaysanayaan ama ay gedaba joogaan. marka waa oo dhulka aad taqaanaa kaaga dhow dhulka kale. arrinta xalay ka dhacday oo dagaalka ah, awalan waxaan jeclahay horta inaan u tacsiyeeyo Soomaali oo dhan, gaar ahaana dadkii wax ku yeeloobay Soomaaliyeed ee muslimiinta ahaa ayaan u tacsiyeynayaa. weliba waxaa la ii sheegay markii aan la hadlay goobaha wax ka dhaceen, qoys madfac ku soo dhacay, dadkii weerarka ahaa ay soo rideen, ku habsaday madfac hoobiyaha ku habsaday, no loo meel dayin. 5 caruur ah baa ku dhintay, nin shantiisii caruurta ahayd. xaaskiina waxaa la yidhi koomay ku jirtaa, koomo. ilaahay subxaanahu wa tacaala musiibadiisa rabbi subxaanahu wa tacaala wax ka khayr badan ha ugu bedelo. ilaahayna subxaanahu wa tacaala samir iyo imaan ha siiyo isaga iyo inta Soomaaliyeed boo dadka dhinteen. waxaa kaleeto la ii sheegay dhalinyarada lasoo khalday oo duulaanka soo qaaday, qolada weerarka ahayd Soomaali bay kusoo duuleen. waa Soomaali ku duuleysa, waa ayaan daro. dhulkoodii lagu soo diray, qarankoodii iyo calankoodii iyo dhulkoodii kusoo duulaya. kadibna waxaa la ii sheegay goob keliya in 17 taqriiban wax ku dhow laga helay oo ku dhintay. dhalinyaradaas lasoo khalday wey. nimanka soo diray ama dadka soo diray oo iyagu gadaal u fadhiya, ama Nairobi ha fadhiyaan, ama Mandheera ha fadhiyaan, ama meel kale ha fadhiyaan, ama Kismaayo ha fadhiyaan, kolley isma weydiinayaan caruurtaas dhimanaysa iyo dadkan dhimanaya iyo kuwan dhimanaya xaabay u yihiin agtooda. waa xaabo, waayo wax ka maqan oo laga dhacay geel iyo ari iyo lo iyo xoolo iyo dahab laga dhacay ma jiraan. nimanka wax soo diraya ama duulaanka soo diraya, dadka caruurtiisana waxay dab ugu shubaan ma yaalaan oo laga qaatay ma jirto. laakiin waxa weeye dulmiga socda uun bay ka mid tahay oo Soomaali ayaan darrada haysata iyo bahasha sanamka ee qabyaalada la yiraahdo ee la isugu soo dhunto, oo nin walba oo doonaya inuu dadka ku awrkacsado ama danihiisa ku gaaro uu maaragtay adeegsado. marka dhalinyaradaas maxay ku dhinteen, maxay u dhimanayeen, maxay u dagaalamayeen? yawm alqiyaama iyaga ka jawaabi doona. adduunkana haddii xisaabi timaado way ka jawaabi doonaan. waxaan rajaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu xisaabta adduunka iyo tan aakhira labadaba isugu daro. waan ilaahay ka baryay oo adduunkana aanay maxkamadeeda iyo xisaabteeda ka fakan, tii aakhira waaba u dambaysaa. marka dhammaan dadkaasoo dhan tacsibay mudan yihiin, dadka caruurtoodu saa ay ugu dhinteen. waxaa kaloo tacsib mudan Soomaalida arrimahaasoo kaleeto taageerayo, qabyaalad ku taageeraya. iyaga laftigoodu dad nool maaha, waa dad dhintay. Soomaali qabiil baa dilay, Soomaali qabiil baa baabi'iyey, Soomaali qabiil baa qarannimadeedii dumiyey, Soomaali qabiil baa calankeeda hoos u dhigay. Soomaali adduunka waxaa ka reebay qabyaalad baa ka reebtay. Soomaali adduunka waxay halka la taalo meesha ay taalo maanta qabyaalada weeye iyo waa reer hebel iyo ninkan waa reer hebel. hadduu adduunka rogaayo waa reer hebel, hadduu maaragtay qaran duminayo waa reer hebel,
hadduu dowladnimo baabi'inayo waa reer hebel, hadduu wax dhacayo waa reer hebel, hadduu wax dilaayo waa reer hebel. intaasaynu adduunka ka naqaan, adduunkana intaasaynu kaga harnay. adduunkana maanta inta uu inagu qadarin layahay inoola yaaban yahay 30 iyo dhowr sano inoola yaaban yahay waa intaas. wax kaleeto oo haba yaraatay ee la inoogu abtiriyo ma jirto. dadnimadeennii bay baabi'isay, diinteennii bay baabi'isay, yacni sharafteenii bay baabi'isay. wax walba oo aynu lahayn oo Soomaaliya lahayd, Soomaali dadnimay leedahay, Soomaali waxay leedahay dhul bay leedahay, Soomaali qaran bay leedahay, Soomaali af bay leedahay, Soomaali sharaf bay leedahay. waxaasoo dhan waxaa isku fuuqsaday oo baabi'iyay oo aynu ku baabi'inay oo ku aasnay reer qabyaaladeed. waa reer hebel ninkaan wuxuu doona ha sameeyo, ha dumiyo, ha duulo, ha dilo, ha baabi'iyo, ha burburiyo. ya waa reer hebel, waa reer hebel. maxaa dhacay hadda duulaankan ninka ka dambeeya maaragtay soo abaabulay Cabdirashiid Janan ama Jubbaland badeh maaragtay maamulkeeda dheh oo iyagu maaragtay meesha ku dagaalamayo dheh waxbaana la ka dhacay ama gobol baana la ka dhacay. maxaa ka maqan? maxay ku gabanayaan? yaa difaacaya? yaa la socdaa? qabiil baa la socdaa. qabiilkaas difaacaya tacsiib uu mudan yahay, waayo ma noola. isagii baa caruurtoodii caawa la aasay. maxay ku dhinteen? isma weydiinaayo. waa nin reer hebela keliya buu is weydiinaya, isma weydiinayaan. dhalinyarada la jifa ah ninka soo diraya ciidankan dadkoodu ma weydiin karaan maanta war dhalinyaradayadii maxay ku dhinteen? maxay u dhinteen? 18 dhalinyaro ama 20 dhalinyaro ah meel ku dhintay maxay ku dhinteen? laysma weydiinayo. laakiin walaalayaal waxaan rabaa inaan xasuusiyo Soomaaliye ilaahay subxaanahu wa ta'ala suuratu Hud oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yiri waa suuradda يعني تمها عديسي مدح عديسي أيا إلهي سبحانه وتعالى وحكى شيء أمة بدن سببت لو عبر قادم وايي إلهي وحكى شيء أمة بدن قوم نوح هود صالح لوط شعيب قوم موسى لح أمة بكشكي مركو إلهي سود ما يقصوين كودي يماشي عرفتوا كودم بيسي أيو إلهي سبحانه وتعالى وحيري تلك القرى نقص عليك تلك من أنباء القرى نقصه عليك تلك من أنباء القرى تاسوا قصوينك أمدها أو أنو إذين شيء إذين عدينا نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. هذا الكوفيرسو محيكو هلاك سمين محيكو عرب قوين محا قار لقو جعض وقود عضي وحوية وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وحكم ده قولوا قدام يسقي صدودا هدنا قوم فرعون. إلهي سبحانه وتعالى وحي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين وحانو صدرني موسى عليه السلام آياتها يجب أن لصدرني حجة لصدرني إلى فرعون وملئه. فرعون iyo qowmkiisii iyo madaxdii jamaamiirta ahayd reerkiisa ahayd iyo nabadoonadiisii ayaan u soo dirnay. fattaba'u amra fir'aun wama amru fir'aun birrashid. ilaahi subhanahu wa ta'ala marka diritaankii wuxuu yiri way kala doorteen nabi Muuse la idin soo diray fir'aunna waa kan wuxuu leeyahay ana meesha ka taliya oo ka ilaah ah. waxay doorteen fattaba'u amra fir'aun. dadkii waxay doorteen nabigii hortaagan oo la hadlaaya nabi Muuse oo wacdinaya bay waxay doorteen inay fircoon raacaan. fircoon bay shacabkaasu raaceen, ummadaasu fircoon bay raaceen. dadka laga hadlayo waa qowm fircoon, qowmkii way ummadii way raaceen, fircoon bay raaceen arrinkiisa. wama amru fir'aun birrashid buu yiri ilaahi subhanahu wa ta'ala. talada fircoon iyo arrinkiisuna mid toosan maaha. ومد لجوه هو ومد لجوه بابه ومد لجوه هو ومد لجوه بابه. فرعون وحقول تاجي هاي مد كستا أو أمدي سلومية مد كستا أو قبيل كيس كبر لحوصله أو ملحون أهر سياده بو تاجيه. فراعنه ويبديه المركب جمع فرعون فراعنه ويبديه ويتربيه مل كستين كسب حيان. علماء التفسير كواحد كل شيء قف كستا أو إلهي سبحانه وتعالى وضريسا سعد وقال له هذا نوع فرعون ما أبا كجرته
marka fircoonadu waa badan yihiin waxaana laga yaabaa qabiil walba waxa luminaya mid fircoona baa luminaya mid fircoon la mida fircoon oo kaleeta ah oo camalka ka shabaha oo hawsha ka shabaha oo yiraahda anaa talada idin hay anaa idin soo dhicinaya anaa sharaftiin hay reer hebel meesha waa ku hoogeen dantoodii anaa wada reer hebel meesha waa lagu quursaday reer hebel meesha waxoodii baa lagala tegay reer hebel meesha arrintooda ay taalo maanta arrin xaqa maaha waxay mudnaayeen ma helin anaa soo dhicinaya aniga iyo rag ila midaa soo dhicinaya idinku xoogaysiiya dhallinyaradana isiiya lacagtana isiiya waa fircoon wey waxaa fircoonadu inay badan yihiin ku tusinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi abu jahl oo quraysh in badani la socotay oo beder ku hoogtay gaaladii colkii lagu riday fircoon hadi lumma waa fircoonkii ummadan wey marka faraacinadu way badan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinkooda saas u bayaaniyay oo cidna ilaahay ma dulmin soomaali ayaan darrada haysata ina wada haysata inagoo dhan ina haysata oo qaxootiga inaga dhigtay oo dhulka ina daadisay oo badaha inagu tuurtay waa fircoonkaasoo miiran waay fircoonkaasoo miiran tusaale u qaata maanta beled xaawo haddii xukunkeeda la rabo maxaa madaafiic iyo dagaal iyo habeen mir loogu soo aadayaa ma laga hadlo ma danteeda la sheegto ma wada fiican lagu raadiyo ma doorasho lagu raadiyo iyo wada toosan ma xaq la dalbado ma laga shawro ma laga hadlo maxaa dhacay dhiigan dadkaanu maxay yihiin waxay ku tusinaysaa dadka faraacinada ah ee Soomaaliya aniga wax badan aan ka hadlo siyaasadeeda dadka ku jida ee wax oo ku jira anigoon cidna kala saarin oo cidna kala soocin waxaan ku sheegay inay intooda badan ilaa man raxima allahu aanay ka fikirin ummad iyo dal iyo dad aanay ka fikirin waadna ogtihiinoo wax badan baan halkaan ama dowladda ha noqoto ama mucaaradkeeda ha noqoto aan halkaan dhammaantood u jeediyey aan dhaliisha u jeediyey welina waa u jeedinaya waana ku taagana saana sida ay ila muuqato wey oo aan u arko xaq aan u arko ama dowlad ha noqdaan ama ha noqdaan mucaarid marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wakadalika nufassilu alaayaati walitastabina sabiilu lmujrimiin ummad yahay soomaaliyeed ilaahay dadka mujrimiinta aheen cidna ka fikirin oo dantooda maahine wax kale aan ka fikirin dantooda gaarka ah maahine aan wax kale ka fikirin ilaahay waa noo caddeeyey ama jaga ha doonaan ama madaxweyne ha doonaan ama wasiir ha doonaan ama wax kale ha doonaan ilaahay waa caddeeyey سبيل المجرمين نفصل الآيات آياتها إيو حجوينك إيو علامتها وحان أعضينا وحوية إني عداته ذاتك مجرمين تاني عدنا كفكرين دانتو ذقارك أهمويان عدك كفكرين ودادو سيو عداته ودادو وي عداتي هدنا ولا دبر علينا يا صومالي وي دبر علينا يا مد والبا قبيل كيسو دبر علينا يا مد مجرمة وقبيل كيس أهبو دبر علينا يا مد والبا مصيبة تاسي إنو قد عيسى inagoo dhan bayna saaqaysaa carruurtay xaaqaysaa dumarkay xaaqaysaa odayaashay xaaqaysaa inagoo dhan bayna xaaqaysaa waaye afar aayadood oo ilaahay aayadaha walaalayaalow ilaahay aayadaha uu ku caddaynayo soomaali u caddeeyey baan afar aayadood baan ka soo qaaday ilaahay subxana wa tacaala wuxuu leeyahay wakadalika nufasilu alaayaati liqowmin yaclamuun sidaas baanu aayadaha iyo calaamadaha iyo tusaalayaasha u caddaynaa ummad aqoon leh oo wax fahmaysa soomaali aqoon ma u leedahay ilaahay aayadaha uu u caddaynayo maalin walba aqoon ma u leedahay soomaali wakadalika nufassilu alaayaati walacallahum yarjicuun sidaas baanu aayadaha ugu kala dhigdhignaa oo ugu caddaynaa bal inay toobad keenaan oo ka soo noqdaan soomaali haddaynu nahay ma ka toobad keenaynaa qabyaaladda aynu wax ku kala taageerayno oo danteenna guud keliya ma taageeraynaa adduun iyo aakhiro ma ka soo noqonaynaa lacallahum yarjicuun weli lama hayo waana waxa dhibaatadu inoogu socoto caawa meel walba qof loogu dilaayo oo dad loogu dilaayaan cidina isu raaceen wakadalika nufassilu alaayaati liqowmin yatafakkaruun aayadaha saasaan u caddaynaa ummad fikirta ما فكرنا ولا ليال صومالي ما فكرنا
xaggee waxay naga socdaan sidee waxay naga yihiin dalkeenni see yahay dadkeenni see yahay ummadeennu see tahay sumcaddeennu maanta adduunka see tahay xaaladeennu see tahay dhaqaalaheennu see yahay innagoo nicmada ugu weyn adduunka ku fadhina oo ilaahayna dejiyey meeshii ugu wanaagsanayd haddana sabool ka nahay faqiir ka nahay cidla taagan nahay laynagu dul khimaarayo كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون هي آيات وحنو عضينا ضد عقلك أديك سنة عقلك آوي عقلك يعني سومالي ديرنا عقلك يعني عقلك أينو وحكو ديدي لهين وحنا كو قران لهين آوي شعبو أنا ولا ما الله سياسي واهران طفي وانا إري واهران طفي دنتي سأشق يستمر هران ريدي مر هراء أيان نعي دنتي سكلية كفكرة ما جاي يا wuxuu doona ha sheegto iyo hadalku doona ha ku hadlo amalkiisaan fiirinayna iyo shaqadiisa marka noqosho laynagama hayo oo aqoon diin iyo adduunyo waxa ku socda laynagama hayo oo aayadihii la cadeeyo fikir laynagama hayo oo aayadihii la cadeeyo aqligeena inuu soo noqdo laynagama hayo marka waxa inagu dhacaya inay nagu dhacaan sidaas inoogu dhacaan maanta waa ayaan daro way dagaalka beled xaawa ayaan daro way inuu sii socdo oo qaabkaas ay sii socotana ma aha waxay ku soconaysaana wax kale kuma socon lahayna waa Soomaali qabyaalad wax ku taageeraysa way wax kale kuma socoteen caruurtana maanta looguma laayeen maanta meesha looguma laayeen waxaan leeyahay marka war Soomaaliyay ayaan daradan in haysatay qabyaaladda ee darar aan ka hadlaynay shalay aan ka hadlaynay ee niman siyaasiyiin iyo nin dan wata lagu taageerayo dadkii ahayd maxkamada in la taago ayaa la daba rucleynaya dadkii ay ahayd in maxkamada la soo taago oo dambiyadii ay ummadan iyo qarankan iyo taariikhdan ka galeen lagu xukumo ayaa jagooyin la raadinaya madaxweynayaal la raadinaya wasiir la raadinaya jagooyin inay qabtaan la raadinaya abaalgud loo raadinaya iska badhaaf inay xabsiga ku abaadaan iska daayay ayaa la raadinaya Soomaali inaga u sababa qabiil kasta u sababa reer kasta u sababa magaalo kasta u sababa والله أنا عد كلا أجرين إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ضدكو إيجا نفتو الظلمية الرمهانو إيا أيان درهاس ويسيسو عنيسا وين جريسا من استاجيسو إلى ضدك الصوماليات هور ضدك كعان ضدك الصوماليات بان ليه يعني ما أنت إلى ضدك الصوماليات قبيل كي وحكو تاجرين جوجيان قبيلات بيحكو التاجرين دان أبو جرتانا مجرتو dan ugu jirtaana ma jirto marka walaalayaal waxaan leeyahay arintaas waa ayaan daro dhalinyaro inta la soo qaldo dhulkoodii lagu soo maaragtay diro oo magaalooyin saq dhexe iska hurda xabad lagu asqaysiyo waxa la ii sheegay masjidkii beled xaawo oo masjid al-qadiim la yiraahdo oo odayaashii ku cibaadeysanayay ee wada xufaada ahaa ay 9 saac iman jireen ساكا صلاة صباح لقمة تكن وركي سوقاري وركاسو صلاة صباح لقمة تكن صلاة دي الصباح لقمة تكن مؤذن كي مركو طبعا لماذا نقال لي نقول ماشي والله يستا كبح بالي ماشي ادمي ميسي كادمي ميسي مصيبة هي انكارتا يا كدا عضي ماشي بالفيري عضي عنقص وختمة يا وحا يقول دد aan garanayo dhalinyaro wadaada aha oo diinta jeclaa oo qabyaalad darteed ama dagaaladan qaarkood ugu dhinteen ama qaarkood ay hadda ku jiraan maxay u dirirayaan waa in adeerkay baa doonaya inuu xukumo haye oo hadduu marka isagu xukumayo ma dagaalamaysaa ma Soomaali kala xabad ku asqaysiinaysaa wada toosan ma wax ku raadisid haddii wadadii toosnayd ama siyaasadda lagaaga adkaadana waqti kale ma sugtid ama wada kale ma fiirisid يا ما تذكر لينيسا ما أمضت بابينيسا ما مجالة دومينيسا ما تذكر بابينيسا وحاس وحسح ما هريبان وشيء وحنكوس وختيم وركيجا يعني مدحوينها جوبلاند أحمد محمد سلام وأرنتها على كسعته أما أكتوذ إيه كده عيسو هريبان هذا كهر فرهين هل كانوا ودري
waan inaan ku tuhmayo diinta inuu si fiican u yaqaano. siyaasadda qaarkeed aakhira lagu waayaa, adduunna waa lagu waayaa. siyaasadaha qaarkood aakhirana waa lagu waayaa, waa lagu seegaa, adduunna waa lagu seegaa. guddoomiyihii hore oo Jubbaland ay soo dirayso maaragtay ama wasiirkii hore Cabdirashiid Janan oo isagana ciidamadan iyo dadkan soo duulaya wata loo soo dhiibay. Soomaaliya qaran dhan baa wuxuu u dumay jabhado Soomaali ah oo magac Soomaaliyeed iyo qabaa'il Soomaaliyeed sheeganaya inay qarankoodii Soomaali ku soo duulaan oo Itoobiya ay soo hubayso oo ay Soomaali ku soo duulaan. wayna dumiyeen بالفعل way dumiyeen 10 sano 78 ilaa iyo 91 bay jabhada qabiil ay dagaalamayeen. SSDF SSS laga dhaxay sheegi kartaa Soomaali waxaan ahayn halkan magaaladan hadda aan joogo ee Turkiga caruurtiinii baa meelahan yaacsan oo booliska Turkigu habeenkii ka guraa jardiinooyinka dhexdooda ka guraa iyagoo dacdaraysan ayaa laga guraa. dhinacan baddaana waa laga soo qaadaa Greega u dhaxaysa ayaa laga soo qaadaa. caruurihiinii waay reer hebel SSS iyo SSS iyo SSS baa dhalay. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala cidna ma dulmiyo. Soomaaliyey aynu wacdiga ilaahay qaadanno oo caqli ku fikirno oo waxa kan diidno, waxa xun aan diidno. ilaahay xaaladan in ku jirno ma bedelayo haddaan xaalkeena inaga wax iska bedelin. qabyaaladda iyo mujrimiinta iyo dadka daalimiinta ah iyo dadka wax rogaya oo aynu dulmiga ugu sacabtumayno waa reer hebel keliyana inaynu iska dayno. arrintaas aynu ka waantowno ayaa dhammaanteen Soomaali oo dhan caafimaadkeeda ku jira. haddii kaleeto waxa weeye waa inaan nafteena u tacsiyeyno Soomaali dhibka haystaa inuu sidaas ahaanayo haddii يعني سداس يكسي جرتو أنا وحبك بدلن. إلهي سبحانه وتعالى توفيق لسانه وفجيه. ربنا سبحانه وتعالى أنت الصومالي كدي منيسة. إلهي سبحانه وتعالى يا مسلم كاهون حريستو وحي دبكو وضنا. إلهي سبحانه وتعالى هكقبتو. إلهي سبحانه وتعالى تلدي أن هتوسيو. ربي سبحانه وتعالى هنقوها لني وضدي ستوصل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.